السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميلكس دنيا كجوكتان واحد نقلا سعوتان channel كنا قدر فني شو أنو آلا بقو هذا الله وحيابها entertainment جا مدللا تاريخها ليابكا أفلام تا ساعتين تا يكوا كذا هذا ما أنت قيبها تاريخ وان كنا صدرنا أو تاريخها كوحها تاريخها حدقها تاريخها ترتمد واوين انت مدام كشكينا لكن waxaan maanta aadi doonaa qaybaha isbarbardhigga ciyaartooyga waxa aanu maanta soo qaadan doonaa isbarbardhigga laba ciyaartooy oo waqtiga kan u kala ciyaara labada kooxood ee hadda u haysta Ingiriiska waa kuwa ku hadda Ingiriiska u haysta mayaan wayn City xeerta Sheikh Mansour iyo Liverpool laba ciyaartooy oo kamida kuwa ugu khatarta badan ayaan soo qaadan doonaa inkastoo dadku qaar ay kala aragti duwan yihiin haddana waxaan isleeyahay labadan nin waxa ay hormuud u kala yihiin inkastoo kuna weeru nin qatar badan yahay haddana kalena waa nin kale muhiim ah waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa labada ciyaartooy ee labada koox ay kala haystaan Raheem Sterling iyo Mohamed Salah oo nin reer Masar waana Messi-ga Masaarida kaana waa Messi-ga Ingiriiska ninba Messi nin walba kiisa Messi wax ay habar kasta xaarkay dhashay xayuuteeda maqli jiray miyaaniyahow yaa qooya kasta cunugeeda lama taageero kastana ciyaartooygiisa la fiican hadda Guardiola Sterling Ronaldo yahay Messi u yahay Guardiola Sterling wuxuu u yahay sida Messi iyo Ronaldo waa Messi-giisa waa Ronaldo waliba xulka Ingiriiska marka laga hadlayo England Messi iyo Ronaldo amal uu ka yahay ninka la yiraahdo Raheem Sterling صلاحنا وان تغيو قطر بدنو وان لوق بدح نين سيس بدو لوق بدح yahay qatar waa dadka lugta bidixda ku ciyaara wax badan laga qaban karo waa waxaan caadi ahayn kuwa midita waa iska yar boodboodayaan yaari kuwa kaaba baroniga la dhashay yaani saaxiib la dadka maqaarka lugta bidix ku ciyaara ahdi u halis badayin waa laga qaban karayo waana ninka hadda Liverpool aadka u jeedaya ninkan Mohamed Salah la yiraahdo marka labada ciyaartooy ee labada kooxood Premier League kala hogaamiya ayaanu soo qaadan doonaayo Salah iyo Raheem Sterling waxaanu eegi doonaa dhanka da'da dhanka kooxii ay soo ciyaareen dhanka goolashay kooxdu soo kala dhaliyeen yaa gool badan al-ultima labada ciyaartooy inkastoo labada ciyaartooy wali ay ciyaaraha kubadda cagta si ciyaarayaan haddana taariikhdu aan sheekadan duubayno un baan waxaan ka soo qaadan doonaa labada ciyaartooy waqtigan yaa kubadda cagta ku gool badan haday ahaan lahayd kooxaha haday ahaan lahayd xul guud ahaan labada ciyaartooyga goolka badan ayaanu eegi doonaa ogown labadan ciyaartooy wali way ciyaaraan goolashoodana intan way ka sii kordhi karaan يا goolashoodana inta way ka sii socon karaan xilliga aad muuqaalkan daawan doonto insha Allah waqtiga noqotee waxaad ogaan doontaa xilliga waqtiga aan duway muuqaalka kan ayaad ka xisaabin doontaa waxaad leedahay oo muuqaalkan wuxuu ahaa 2019 kiibu ahaa hadda waxaanu maraynaa 2020 meelaha ka sodomeeyo meelaha ka وانا اسكسي سocon kara taariikhda waxaan waa wax meel ku dhacay adduunyadan jilba imaanaya markay soo bardhigu dhankiisu markaan ka hadlayno taariikhdan hadhow wax badan ba iska bedeli doona dhankan goolashan wax badan ba isbedeli doona ciyaartooygu goolashu maanta aan sheegi doono uu si dhaafi doona oo marka ugu kuwan waaciya laakiin hadii ahaan lahayn laba ciyaartooy ciyaaru ka fariistay hadii aan maanta ka sheekayn lahayn oo kale goolashooda meel ku xadiidin waa fariisteen kuwa ka laakiin kuwanu goolashooda waa sii soconaya maalba mid bay dhalayaan haddaba aanu guud galno labada nin ee u kala ciyaara labada kooxood ee baryahan Premier League isku haysta sanadka hore Premier League Liverpool ma City ku tartameen haddana way ku tartamayaan wali way ishayaan wayna ishay doonaan baryaha kano labadan kooxood waa quwadaha England markaan ay haysto wayaan kuwii kala motorka ka wada daway waa ka wada damayo cimad ay leeyma kuwa hadda kooxaha kale cimad ma lahan laakiin labadan kooxba ugu cimaamadan Ingiriiska Liverpool iyo City marka labadan kooxood bariyaha taageerashoodu waa isdagaalaan way isku buuqaan waa lis afgaara waa meelaha fagaaraha la isku helaa waa anaga sida waa anagu Champions League baanu soo qaadnay waa anagu Premier League baanu qaadnay waa anaga Champions League baanu soo qaadnay anagu Champions League baanu soo qaadnay markaas Premier League halaysan anagu Champions baanu qaadnay kuwa kala soo boodaya wariya been isku sheegina wariya Champions League waxaad ka jecleedeen Premier League aad ka jecleedeen maxaa yeelay 30 sanad Premier League raadinaysan wariya anagu ciil baan idinku dilnay kaas baan idinka qaadnay waa kuwa hadda isku la haystay doodaya sagaashika waa dooda labadan kooxood waxay noqdeen kuwa cusub oo hadda tartamay yaani classicoyka England kuma jiri jirin kulankan laakiin hadda wuxuu noqday classic buu isku bedelay kulanka labadan kooxood dhexmaraya Liverpool iyo Manchester City waa faracantay oo taageero badan bay heleen ka xoog badan bay u muuqatay bari hore waa ka dansanaan jirtay hadda lacag badan baa la galiyay Sheikh Mansour oo soo baxay lacag badan baa la galiyay taageerayaashooda waxa weeyaan kuwa City aysan iyo kuwa meelaha kale ka yimaade oo madax degsi meesha u soo aaday laakiin ay u toostay
deegaanay noqdeen macnaha ya waxay isiraadeen bal xagga booliisiga sii guuro markii magaalooyinkii nabad ay idin noqdaan yani kooxiina idin ficnaana usoo laabtay isdhahayeen say ula joogeen ama ugula joogeen city waa cityobeen ba dhiigooda city u noqday marka waa city taas u city marka city waxa madaxdiis u aaday dadkii kooxaha kale ku kor wareeray oo dhan ba halkaas ay aadeen halkaas bayna hadda noqdeen waa cityobeen macnaha soo laabasho ma lahan waa cityobeen dhiigooda city baa noqday Liverpool qudheed xataa bariyahan waa lagu joojiraa macnaha Liverpool qudheedu bariyahan waa laga dhaxbuuxaayo ayagu xataa taageerayaashood inkastoo taageeraal hore ay jiri jireen sabar badnaa oo muddana koob qaadin qaarkood horta waa iska caajisay waxay naga dhaaf Bruno waxaan Bruno lama taageeri karo intaan kadib inta sanaan koob raadina kuwa horta waa caajiseen oo Liverpool taageera wareerka iyo koob la'aanta isaga dhaafay Bruno ba kuwana way taageeri jireen ilaa hadda way taageeraan kuwana waxa weeyaan Maxamed Salah keenta waa macnaha Soomaali maqasho waa macnaha Maxamed Salah wiil Maxamed Salah la dhahaya imaaday oo Masar hayaha Maxamed la dhaha Masarna waa u dhashay Axmed Xaliim cunugeeda waaye Roshak muslim waaye Maxamed Salah kuwaas keeni Soomaalida muslimka ayaa raacay Soomaali badan waxay ka raaceen wiilka muslimka na raaci kooxdiisa kuwa horta Maxamed Salah keenay Liverpool kuwa madaxdigsi u yimaadeen meesha kuwana waa joogi jireen waa la isku darso marka waa kay waxay noqdeen waxbaan wax laga qaban karin waaraan u dhaadhaco muhiimada maanta iyo isbarbardhigga labada ciyaartooy Salah iyo Sterling labada ciyaartoyda yaa weyn Salah wuxuu hadda jiraa 27 sano waxa uu dhashay 1992 Sterling waxa uu isaguna jiraa 24 sano labada waxa da'weyn Salah baa da'weyn muhiimta isbarbardhiggu dhowr dhinac u fiirinayna da'da aw Salah wuxuu jiraa 27 sano Sterling wuxuu jiraa 24 sano uu jiraa okay aanu soo gudubno Raheem Sterling xirfadiisa kooxaha kubadda cagta u soo ciyaaray hadaan u eegno Sterling wuxuu soo ciyaaray kaliya laba kooxood buu u soo ciyaaray waa Liverpool iyo Manchester City laakiin Maxamed Salah kooxo badan ayuu u soo ciyaaray oo meelo kala duwan ayuu ka soo ciyaaray min dalkiisa iyo meelo kala duwan ba Maxamed wuxuu u soo ciyaaray koox uu ka soo bilaabay wadankiisa oo yiraahdo Al-Muwakkilun oo Masar kadib Basel buu u ciyaaray kadib Chelsea buu u ciyaaray Fiorentina buu u ciyaaray Roma haddana u ciyaaray haddase Roma marka laba jeer buu Roma u ciyaaray hadda Liverpool buu joogaa ninkaasna waa Maxamed Salah marka Maxamed Salah kooxo kala duwan buu soo ciyaaray oo badan laakiin Sterling waligiiba Liverpool iyo Man City maanu dhaafin labada koox buu u ciyaaray meelaha lagu ark labada weeyaan waxay Sterling u diiwaan gashan okay-ba imisa gool ayuu u dhaliyay Liverpool waqtigu uu ciyaari jiray Raheem Sterling Liverpool wuxuu soo dhaliyay waqtigiisa asagu waqtiga Guardiola ula joogo ayuu Sterling aad u fiican yahay Guardiola ka dhaliyo weyn ninkan Sterling asaga goblayna mooyaane maalin kasta toddobaad kasta halaha gool uu qasaarinayo haduu dhalin lahaa jabaanan gool buu haysan lahaa goolayaalo badan uu haysan lahaa goolaynta kasta asaga qaadi lahaa hatta balandoorida u tartami lahaa balaayi wuxuu qabaa asoo kufkufay soo galay macna yaani wax la yiraahdo qasaariso uu qaba macna madaxu ka xanuunjinaya toddobaad kasta gool uu qasaarina goolna waa dhaliya toddobaad horta madaxu ka xanaajinaya waa tagaya goosha waa cuna waa taga waa qasaarina khasaaris intuu gool uu qasaari haduu dhalin lahaa Sterling maanta waa tagay nin weyn buu isu si bedeli lahaa hadda uma shariiran laakiin khasaaris kana meel laga geeyay la yahay intee laga geynahay ma ka weynaanay gool khasaaris kama weynaanayo marka Sterling waqtigiisa Liverpool 129 kulan uu ciyaaray wuxuu dhaliyay kaliya 23 gool laakiin waqtigiisa Man City ayuu fiican yahay Man City wuxuu ciyaaray 196 ciyaarood waxaana u dhaliyay 75 gool Sterling xirfadiisa kooxeed waxa uu haystaa goolal gaaraya 98 gool waxaanu ciyaaray 325 kulan 98 gool uu dhaliyay xulkiisa waxaanu ku daraynaa 9 gool uu dhaliyay xulkiisa waxa uu Sterling u haystaa goolal gaaraya xirfadiisa ciyaareed 107 gool marka Sterling laba koox buu soo ciyaaray goolashan soo sheegay uu dhaliyay Sterling guud ahaan xul iyo kooxba goolashu uu haysto waa 107 gool haddaanu aadno dhanka iyo Maxamed Salah isagu kooxda Al-Muwakkilun 12 gool buu soo dhaliyay xirfadiisa kadib Basel waxa uu dhaliyay Basel buu wareegayo wuxuu dhaliyay 20 gool kadib wuxuu ku biiray kooxda Chelsea wuxuu dhaliyay qura 2 gool buu dhaliyay maxaa yeelay Chelsea way kurkurtayo fursad baan u siinin ninka kanu kadib Fiorentina buu aaday mar 9 buu dhaliyay mar 89 buu dhaliyay isku darkiisa yaani Fiorentina mar 9 iyo mar 10 uu dhaliyay Roma iyo mar uu 9 uu dhaliyay ala ay xal adigu ninka kaayay markuu Serie A joogay
Fiorentina iyo Roma ama ugu ciyaarayay iyo Roma mar kale si toos rasmi ugu wareegay ala ay xal labadaas kooxood ninka wuxuu u dhaliyay 34 gool buu u dhaliyay labada kooxood kadib waa ka soo tagay maanta Liverpool buu joogaa oo nin wax kale ka yahay 110 ciyaarood u ciyaaray Liverpool ninka yiraahdo Mohamed Salah wuxuu hadda u dhaliyay kooxdiisa Liverpool 74 gool guud ahaan Mohamed Salah waayisa kooxeed ee kooxaha kala duwan ka soo hadalnay wuxuu u dhaliyay 151 gool 151 gool u dhaliyay xirfadiisa kooxeed oo kooxiisa u dhaliyay ya 151 gool waxa lagu darayaa 41 gool uu dhaliyay wadankiisa taas waxay ka dhigan tahay Mohamed Salah waxa uu haystaa 192 gool taas ayaana ka dhigan Salah inuu ka gool badan yahay Raheem Sterling marka reer Man City waalid ka badiyay tartankiisa bariga labada ciyaartooy inkastoo ay kala da'weeyeen mid waa 27 sano jir weeyaan oo Mohamed Salah 27 sano uu jira oo waa nin 27 jir oo sodomayada u socda kaasuna waa mid 24 jira laakiin almuhim labada ciyaartooy marka isku barignay dhanka goolasha ay haystaan ninka madaxa daash kale u ciyaara Liverpool ee Salah ba ka gool badan aw Sterling Raheem Sterling xirfadiisa koox wala xul wuxuu haystaa kaliya 107 gool aw Salahna xul iyo koox marka la isku soo daro inta gool u dhaliyay waa 192 gool war waa la kala tagay orodna maahan war dacaska isku soo baxsano ordina hoo malayn ee goolasha lagu kala tagay baan kala jeedaa waa la kala tagay ordna ma ahan micnuhu ma ahan aanu markaan ku dhaho ereyga ka inaad fiyaalaha ama fagaaraha timaado yiraahdo Maxamed Qadar aan orodno ama isku orod baxna ma ka wado labadan way kala hormareen gaadhka goolasha kala wada Sterling way inad goolasha hormarisa waxaad goolasha kortagaysa qasaarinaysa maahan fardhi goolasha niyahow waxaan qasaariska meel laga geeyay lahayn ayow Salah baa maanta badiyay Liverpool 1-0 City yaga garaacay maxaa yeelay Liverpool kan uu ciyaara kaasna City uu ciyaarayo City waalid ka badiyay tartamo kala duwan baa soo socda oo aan laba ciyaartooy ama isba bardhigi doona qaybta hoose nagu soo reeb labada ciyaartooy aad jeceshayn isba bardhigno ogow wayna ahaadaan ciyaartooy isku boosa ama garbo ama weerar ama dhex ama difaac sabayday noqdaan baa noqdaanay labadaad u baahan tahay halkaas soo dhig inta ku kala bixinaynayo qanciya halkan yaala VAR ba halkan yaala VARka Maxamed Qadar VARkiisa u keena waa lagu kala bixinayaa okay ba Salah baa ka gool badan Sterling taariikhda still ogow labadan goolashooda way socon karaan maxaa yeelay wali way ciyaaraan